الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لباد كتاب كان إغاثة اللهفان من مسائد الشيطان أو من مكائد الشيطان محال laga wadaa marka kelimaadkii baan rabaa fasirkooda inaan u gudubno إغاثة اللهفان marka la yiraahdo اللهفان waa almalhuuf waa qofka makruubka oo kurbaysan ayaa la yidhaahdaa waa qofka dhibaataysan waa qofka khatar ku dhacay waa qofka halaag ku dhexdhacay kaasaa la yidhahda marka allahfaan marka la yidhahda waa maxsuunka xusniga iyo murugtu ay haysato oo kurbada iyo dhibaatada ku jira ama ha noqoto shay maadi ah ama ha noqoto shay macnawi ah cadow markaad ka baqayso gargaar baad u baahan tahay juuc iyo gaajo iyo oon marka ku hayana gargaar baad u baahan tahay allahfa asalkeeduna waa xusniga shadiidka la yidhahda murugta daran baa lahfa la yidhahdaa iyo kurbada daran markuu ku jiro aligaatha igaathatu lahfa marka igaatha la leeyahayna waa alinqaad waa badbaadin kurbadaas iyada ah wax kaa badbaadiya inuu qofku helo uu raadiyo taasaa la yidhaahdaa haddaba ibnu qayim raximahullah markii la leeyahayna masaa'id la yidhaahdo iyadana waa dariiqii masaa'idu waa wax tiro badan oo maaragtay qeybo badan baa masaa'id ashaytaan waa meeluu dadka ku ugaarsado waa kullu lmacaasi washahawaat baa la yidhahda waa macsiyo kasta iyo shahwo kastoo xaaraam ah iyo wixii waswaas oo shaytaanku uu kugu samayn ducful iimaan iimaanka daciifnimadiisa dadka ashraartee xunxun oo lala saaxiibo wasaa'isha iyo waxyaabaha maaragtay ku gaadhsiinaya muxaramaadka waddo kasta oo xaaraan ku gaadhsiin oo la maro ayaa la yidhaahdaa sida inuu qofku fiiriyo wixii ilaahay uu ka xarimay inuu indhaha ku fiiriyo suurooyinkii iyo suwarkii khaliicada ahaa ee qaawanaa aflaamtii iyo filimadii iyaguna maaragtay qaawanaa iyo kuwayaabaha ibaaxiga ee maanta adduunka ka jira inuu maaragtay qofku dhegeysto dhegihiina uu ku dhegeysto waxaan banaanayn sida heesihii iyo maaragtay waxyaabihii iyaguna muusikadii sida kiibadii xantii namiimadii shatmigii iyo caydii iyo aflagaadadii qowlo zuurkii iyo markhaati beenaalihii guud ahaanba masaa'id waxaa la odhan karaa kululmunkaraat waa munkar kasta waxaa la yidhaahdaa waa shaytaanku waxa uu dadka ku ugaarsado masaa'id ashaytaan yastaadu biha ibnu aadam binu aadamkiibuu ku ugaarsanayaa si uu ugu rido naarta si ugu rido horta asalku waa sidaa masaa'id ashaytaan waa waxyaabaha uu shaytaanku u adeegsado si uu qofka naarta ugu rido asalka u dambeeye marka u dambeysa ay noqoto inuu halkaas qofka uu kula saaxiibo oo uu geeyo kaasaa masaa'id ashaytaan la yidhahdaa waxaa weeyaan godadka uu u qodo dadka waxaa weeye shubuhaadka uu ku furo oo maaragtay dadka shaki fi diin buu ka geliyaa waxaa weeye dacaayaadka uu maaragtay qofka uu u mariyo oo ruuxii intii dharkiisii la dacaayadeeyo jirhkiisii la dacaayadeeyo diintiisii la dacaayadeeyo maaragtay dadkiisii la dacaayadeeyo wadankiisii la dacaayadeeyo qabiilkiisii la dacaayadeeyo aad arkayso adigoo waxaasoo dhan ka cararaya marka faqalla man yanjuu baa la yidhahda waxaaba yar ciddii ka badbaadaa iska yar maxaa jira ilaa qofka waxa uun ka badbaadaya kitaabka alle iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam qofkii qabsada baa ka badbaadaya insha allahu tacaala waxaa jira axaadiis ku tusinaysa ereygaas isaga ah oo igaathatu lahfaan sida xadiis ay soo guuriyaan oo la yidhahdo kullu macruufin sadaqa macruuf walba waa sadaqa waddaalu cala alkhayri ka faacilihi qofka dadka khayrka tusanaa wuxuu lamid yahay sidii kii sameeyey wallahu yuxibu igaathata allahfaan ilaahayna wuxuu jecel yahay dadka malhuufiinta waa qofka makruubka kurbada ku dhacay oo dhibaatadu ay haysato in loo gargaaro ayuu jecel yahay marka malhuufkuna waxaan niri waa makruubka sidaan hore usoo sheegnay qofka daraa dhibaatada nolosha adduunku ay taabatay baa isagana lamid ah dadkan dhibaatooyinku ay haystaan oo quuta nafsiga wa ciyaali aan heli karaynin caruurtaadii reerkaa waxaad maanta aad cuntaan aan haysanin oo xayaatadii adduunku ay ku adkaatay
oo dadkaas ay haysa abaarihi ay ku dhaceen. Dadka malhuufiinta la yidhaahdo waa dadka iyo mankuubiinta, dadka dhibaatooyinku. Markasta waxaan rabaa weli kelimadaas si aan usii fahamno oo kitaabka magaciisa aad ula qabsato biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. marka xadiidkaas iyo axaadiis kaloo soo aroortayba culimmada inta badanna way daciifiyaan, laakiin macno ahaan waxaa jira dee aayadad badan iyo axaadiis badan, tacaawanuu cala albiri waataqwa, yacni in wanaagga laysu kaalmaysto. marka waxay ka mid tahay ama shaygaa macnawi ha noqdo baan nidhi, ama maadi ha noqdo. dhibaato ku haysata in lagaa badbaadiyo, ama dhibaato macnawiya oo ku haysato ducful iimaan baa kugu dhacay. waana kitaabku hadda meesha uu u socdo, qof la rabo in la badbaadiyo oo naftiisii la badbaadiyo oo shaytaan laga badbaadiyo oo naar laga badbaadiyo. waa middaa marka midda kitaabka uu ku socdo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa biasmaa ilxusna wasifaat alxulaa inuu inaga badbaadiyo shaytaan iyo wadooyinkiisaba. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.